بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimo badan oo nagu soo noqday oo ashtaka badan ama dacwo badan noogu timid dhinaca awood qaybsiga hadii la fiiriyo xafiisyada kala duwan saa ka warqabtid laga soo bilaabo xilligii Cabdi Qaasim ilaa aad ka iimaanaysa Xasan Sheekh waxaad u malaynaysaa awood qaybsiga si sax in wax loo wada qaadanayo wixii lagu heshiin waxay ahayd shanta beelood ahayd 4.5 ani ma dhihi kari shantaas beelood si cadaalad ay wax u wada qaadanayaan laakiin xukuumadan hadda joogto waxa dareemaysaa in xadgudub badan uu jiro ha ahaada dhinaca arrimaha dibadda ha ahaada dhinaca ciidamada oo kala duwan waxa ka warqabtaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed 18 hoggaan uu leeyahay sida loo qaybsaday hoggaanada mas'uuliyiintoodu waa dareemi kartaa waxa kale oo jira dhinaca dalacsiinta maalin walba dad baa la dalacsiyaa dad beelo gaar ah la dalacsiyaa beelo gaarna waa laga tagaa waxa dareemaysaa in maxal lahay awood qaybsigii taliyaashii ciidanka hadda annaga haddaan koonfur galbeed aan nahay waxaan xaq u lahayn oo awal u hayay xilka taliyaha nabad sugidda wuxuu ahaa nin deegaanadan koonfur galbeed ka soo jeeda ninkii hadduu is casilay booskii hal sana la iska haysta hadda cid haysatana waa dareemi kartaa cid haysato waxa waaye booskan xaq u lahayn waa la magacaabi waayay ilaa ay hadda maxaa loo magacaabi waayay tusaale ahaan hadda hoggaankaas nabad sugidda lix hoggaana ka jirto lixda hoggaan awood qaybsi maaha waa beelo gaar ah u badan beelo gaarna maba ku jiraan waaxiyadoodana sidaas oo kale waa ciidamada saas oo kale ciidamadii awal ka shaqeyn jiray maxaa la lahaayay ma joogaan waxa loo yimid ciidamadaas qaar ka mid ah hayeen dhinacan booliiska ahna waxa way dadka qaarkood ayagoo cabashay noogu yimaadaan annaga xafiisadeen markaan dawladdii hadday maxaa la lahaayay ay gacan bidixaynayso deegaano qaarkood waxa waa annaga xadgudubkaas inuu sii socdo waxa waaye mid aan annaga raali ka nahay maaha waxa waaye waa inaan ka tashanaa aayaheena dambe waxyaalaha sababaya in dawlad goboleedyada qaarkood ay dhahaan waa goosanaynaa waxaa ka mid ah taas oo kale ka mid ah haddii meeshii wixii lagu heshiiyey qodobka dastuurka qodobka koowaad ilaa qodobka 143 waxaa u malaynaysaa 90% in aan haba yaraatee wixii lagu heshiiyey aan la fulinayn dhibaatooyinkaasaa jiro waxaa kaloo jiro saad ka warqabtay caasimadda muqdisho waxa waaye caasimaddii Soomaaliya waaye markaan caasimaddii Soomaaliya 17 degmo 17 degmo waaye 17dooda degmo saa ka warqabtid maamulada Soomaaliya qabaa'ilada degan waxaa ka maqan hal deegaan ka maqan deegaankan koonfur galbeed dadkoodii waxay xaq u leeyihiin muqdisho kala bar meehe 3 meelood 2 meel ayaga degan hal degmana lagama seenin waxaad dareemaysaa annaga haddii aad fiirisid koonfur galbeed maamulka ku dhisan oo hadda ah iyo maamulkii ka horeeyey oo Shariif Xasanba waxa waaye Soomaalida inay u wada dhan yihiin markaan Soomaalida waxaan la yaabsanahay sababtay annaga gacanta bidix ay nooga qabanayso waa dareemaynaa in cunsuriyad xun ay jirto meeshii aan la rabin dadkan maxaa la lahaayay in wax loo qabto waxa waaye hadda ugu dambeysay 11 qof la dalacsiiyey oo booliiska waxa waaye hal qof kuma jiro dadka deegaanadaas ka soo jeeda waana booliiskii Soomaaliya la dalacsiiyey saas oo kale ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya maalin walba dad baa la dalacsiyaa markaan tusaale ahaan hadda waxaan kuu sheegaa maamul goboleedyada Soomaaliya 42 milyan oo dollar midowga Yurub ugu deeqay deegaanada qaarkood waxa waaye kulli waa la wada siiyay maamul goboleedyada dhan laakiin deegaankii koonfur galbeed waa laga tagay madaxda Soomaaliya waa dareemaysaa meelaha ay tagayaan ma tagaan hadda gobolkan Bakool oo ah gobolka kaliya ee baaba'san gobol ahaan Soomaaliya hadii la fiiriyo waana ciidanka ugu tiro badan meesha ay joogaan waa dadka kaliya oo maxaa la lahaayay difaacday deegaankooda waa ma haystaan hal Cabdi Bila ma haystaan saas oo kale qaybta lixnaad bay dhow 2 Cabdi Bila 3 Cabdi Bila haystaan maamul goboleedyada kale waxa la sii hub aan la qiyaasi karin oo arkayda maalin walba dekedaha laga dejinayo war waxa la rabaa miya haddana deegaanadeena in lagu soo duulo hubkaas waxa dadka loo siinayo saas miya annaga meesha dawlad kuma aragno dawladdii maalinta ka dambayso madaxdii Soomaaliya xataa waxaad arkaysaa inay muddooyin dhowr bilood ah ay aadayaan gobolada qaarkood ay ku nagaanayaan laakiin goboladaas oo Bakool iyo gobolada Baydhabo haba yaraatee maxaa la lahaayay waxa ka jira oo xaqiiqda ah maxaa la in la arko ma la rabo markaan waxaan ka soo horjeednaa maamulkan oo dawladda dhexe dadka mas'uuliyiinta ugu sareysa oo xadgudubka ku sameynaya maxaa la lahaayay dadka deegaankaas oo koonfur galbeed degan oo ah maamulka kaliya
Soomaalidan aad ka dhex arki kartid waxa waaye annagana xadgudubaan nagu sameynaa maalin walba xilkii annaga aan lahayn hal sana taliyii nabad sugidda alla magacaabi waay sababta loo magacaabi waayna qof walba waa dareemi karaa waxa waaye dhowr jeer aan ka cabanay safaaradihii dibadda saas oo kale awood qaybsi maaha ha ahaadaan safiiradii qunsuladii xogayii joogtadii ha ahaadaan maxaa la lahay dhinaca ganacsiga maxaa la lahay dhinaca maxaa la religion taaji ha ahaado wax walba oo qushay shaqaalaha safaarad kasta oo qusay haba yaraatee dadka aan ku jirnaan nahay marka hadda wixii ka dambeeyo aniga meeshan marko inay dawlad jirto waxaan rabnaa aayeen inaan ka tashano dhammaan bulshada reer Baydhabo oo hadda ay tahay caasimadii waxaan rabnaa maxaa la lahayay iyo maxaa la lahayay goboladii kale ee koonfur galbeedba in arimahaas shirar degdeg ah lagu qabto magaaladaas Baydhabo la isugu yimaado maxaa noo dan ah maxaa la lahayay mustaqbalkeena aan la hiigsaneyn aan fiirno waa maamulka kaliya oo soo jiray laga soo bilaabo xilliga Cabdiqaasim ilaa Xasan Shaqaaqi imaanaysid oo xuquuqdan inkiray maamulkan hadda jiro waa oo madaxweynuhu yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markaan waxaan rabnaa annaga Soomaalinimo waa rabnaa laakiin dana Soomaalinimada diidan ayaa jiro oo maxaa la lahayay dadna maxaa la lahayay iska dheeraynay dadna maxaa la lahayay barnaamijyadii mashaariic badan siinay waxa waaye waa qalad in maamul goboleedyada dhan loo qaybiyo 42 milyan maamul goboleedka koonfur galbeedna loo diido waa qalad in maxaa la lahayay xubnihii awood qaybsigii wixii xaq aan u lahayn lanoo diido ay dadna ay awood qaybsigii annaga aan lahayn xaqeeni ay ku darsadaan markaan wax aan fiirsan karna male waa naga soo dhamaatay aniga meeshan kuma arkaayo wax dawladda waxa waaye waxaan u sheegaynaa beesha caalamka in xadgudub badan oo maamul xumo ah uu ka jiro maxaa la lahayay waddanka Soomaaliya taasoo ay sameynayaan madaxda hadda ugu sareyso waqtigan asagaaba iska dhamaanooy waxaan rabnaa inuu ilaahay nagu soo celiyo mar rabno dadkan hadda oo xilka noo hayo waa dadkii Soomaali kala geeyay waay maxaa la lahayay intay Soomaali isu keeni lahaayeen ayay waxa way xadgudub badan ay nagu sameeyaan saas daraadeed xildhibaanada federaalka annaga ah oo dawladda dhexe matalaayo waxaan idin ka codsanaynaa in aan midoowno hal meel aan ka soo wada jeesano arrintaana maxaa la lahayay tallaabo cad laga qaado laga bilaabo maalmaha soo socdo sidaan Baydhabo ku tagi lahayn markii wax lagu ogolyahay haba yaraatee male. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.